haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay, fadlan ha fiirsan. Sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Jack. Jack iyo saaxiibkiis waxay ahaayeen booliis, markastana waxay soo qaban jireen tuugada iyo burcadda loo diro. Jack iyo saaxiibkiisa waxay ahaayeen dad aad iskugu wanaagsan, markastoo ay shaqada soo dhameeyaanna way isla kaftami jireen. Mission kasta oo loo diro labadoodana si degdeg ah ayay kusoo fuli jireen, hawshoodana si daacadnimo ayay u qabsan jireen. maalmaha ka mid ah, Jack iyo saaxiibkiis waxaa loo diray mission cusub. Missionkaasina wuxuu ahaa nin dhacaya bangiga inay ka soo badbaadiyaan. Run ahaantii Jack saaxiibkiis ayaa ka soo hormaray. Kadib markay soo degeen, Jack iyo askartii kale waxay maqleen xabad dhacayso. Markay soo kala ordeen toosh ku ifiyeen, waxay ogaadeen in ninkii burcadka ahay la dilay, qofka dilina uu ahaa Jack saaxiibkiis. Jack wuu weydiiyey saaxiibkiis sababta oo ninkaas u dilay, laakiin saaxiibkiis wuxuu ugu jawaabay, saaxiib, aniga ninkaas wuu isoo weeraray, anna iska daafacayay. Jack maalin asigoo Facebook iska fiirsanaya ayaa wuxuu ku arkay ninkii la dilay oo burcadka ahaa iyo saaxiibkiis inay sawir isla galeen. Jack wuxuu ogaaday in xiriir uu ka dhaxeeyay saaxiibkiisa iyo ninkii la dilay. Kadib isla markii wuxuu ogaaday saaxiibkiis inuu tuug yahay, wuxuuna ku markhaati furay maxkamadda horteeda. Saaxiibkiisana sidii ayaa lagu xiray. 3 sano kadib, Jack wuu iska hilmaamay wax kastoo hore u soo dhacay, keligiis ayaana meel kasta iska aadi jiray oo magaalada kusoo wareegi jiray. Maalmaha ka mid ah, Jack asigoo gurigiisa imaaday ayaa wuxuu ku arkay gurigiisa in la isku dhex qasay, alaabtiisa dhamna la jibiyay. Kadib booliiska ayuu u wacay, baaritaan dheeraad ayaan la sameeyay, laakiin wax tixraac ah waa la waayay. Kadib Jack asigoo sariirtiisa iska jiifa ayuu wuxuu ku arkay hortiisa warqad ku dhagan. Warqadaasina waxaa ku qorneed xasuuso. Kadib daaqad ayuu soo istaagay, wuxuuna raadiyay qof bannaanka taagan, laakiin qofna muusan arkin. Jack subax markuu soo kacay wuxuu arkay baabuurkiisa oo miyaaradda laga jabiyay. Isla markiina wuxuu ka shakiyay in saaxiibkiisa uu ka jabiyay. Kadib asigoo wadada socda ayuu wuxuu arkay saaxiibkiis. Isla markiina wuxuu damcay inuu wargeliyo booliiska, laakiin mobilkiisa ayaa signalka ka lumay. Kadibna waxaa loo soo diray message-kaasna wuxuu ku arkay sawiradiisa. Meel kastoo joogo run ahaantii waa lagu soo sawiray, hadday tahay xilliga shaqada iyo xilliga booliiska. Kadib warqad oo saaxiibkiisa iskula sawiran yihiin ayuu arkay. Sawirkaas gadaashiisana waxaa ku qornaa, adiga waad dhimanaysaa. Jack isla markiiba wuu ogaaday dabaqa ka sareeya in uu qofkaas degan yahay. Kadibna booliiska ayuu u diray, laakiin waa laga soo waayay ninkii sababtoo ah mar hore ayuu ka baxsaday meesha. Kadib Jack maalinkii xigtay waxaa loo soo diray howlgal cusub. Missionkaas oo cusub loo soo dirayna wuxuu ahaa nin tuug ah. Ninkaasina wuxuu dhacayay dadka baska saarnaa, midi ayuuna watay. Isla markii si degdeg ah wuxuu ku imaaday meeshii. Jack markuu meesha imaaday wuxuu ugu imaaday ninkii oo la xirxiray. Kadib Jack asigoo baska saaran ayaa bistool lagu soo riday. Nasiib wanaag asigoo ka badbaaday, shakhsi kale oo meesha taagnaa ayay ku dhacday bistooladii. Jack isla markii wuxuu soo baxsaday qorigiisa, wuuna ka daba cararay. Qorigaas wuxuu ahaa shooter. Arrinkuu ku xumaana wuxuu ahaa qofka adigoo ka daba ordaysid kuma dhufan karaysid, sababtoo ah haddaa la gaftid qof kale ayaa ku dhiman kara. Jack wuu daalay, kadibna wuxuu ku fikiray qofkan haddii uu fasaxo in uusan biri dhaafaynin asiga uu dilayo. Isla markii wuxuu go'aansaday in uu dabaq fuulo, dabaqaasna ka soo toogto. Kadib Jack wuxuu soo fuulay dabaqii. Kadib markuu dabaqa soo fuulay, wuxuu shiishka saaray ninkii xabadda ku soo riday, kadibna wuu toogtay. Ninkiina sidaas ayuu ku dhintay, dhulka ayuuna ku dhacay. Kadib booliiska ayaa meeshaasi isku weer ka qabtay. Jack wuxuu go'aansaday ninkan inuu fiiriyo wejigiisa. Wuxuu ogaaday ninkaasi uu dilay inuu ahaa saaxiibkiisa
wax badan ay isla soo shaqeeyeen. run ahaantii Jack arrinkaas aad iyo aad ayuu u xumaaday sababtoo ah saaxiibkiisa xumaanta uu sameeyey ayuu la yaabanaa iyo dhibaatooyinka isla soo mareen. fadlan ha hilmaamin inaad videoga like garayso.